waraysi walaashay layga qaado reer dhisan oo dhaqan baan nahay dadka dariiqa martay maxaa sababay soo markaa ay dariiqa marto ay wallahi sababteeda aanu kama warrami karo oo ilama tashanin bisi social media waxa isdhex maray ama baraha bulshada ay ku kulanto inay warar soo baxayo lalaha nimco reerkani ka soo jeeda iyo reerkani ka soo jeeda iyo gabadh ka hadli jirto waa walaashii oran jirtay hawshaas horta iminka halkay maraysaa horta waa su'aal aad iyo aad u fiican dadweynuhu iga sugayaan horta runtii wax badan maan rabin maanta inaan ka hadlo laakiinse aad bay u fiicantay waan ka helay su'aashaad weydiisay markii dad wax media galay oo dadunku dhan lagu ogyahay Soomaaliya horta waxa weeyaan halkan waan iga imi June iyo July ugu soo joogo waxaan u imi inaan adeega DNA kala qaadano DNA baan u imi anoo joogay adeega hadashay Hargeysa jooga oo jiri DNA ka dhumanaysa lama hayo 4 bilood uma soonto caynka lulu aan Hargeysa jooga ugu iyadu mu wax isleed waxay joogtaa London todobadii ba hadashay ana 8 baan hadlay maanta ku xigtay badri bay wareystay waanigi daadiga lahaa adeegay waan ku imi walaal macaani London waan kula jooga DNA baan aanu imi maalinta June iyo July iyo August baan joogay irgaan dirtay boqor Axmed baa kamid ahaa waxa kamid ahaa sultaankii adeega kamid ahaa adeero Ibrahim waan dirtay waxaan ku dhexnoo noqda DNA noo kala qaada ana waaniga imi sheekadana saal gu soo afjaro adigu waxa sheekadii waan arkay inaan xagoodii ka soconin adeegi passport ma haysatay iyo weyn la garoobo la geeyay iyo adeer iska tag soo noqodka laga dhigto baba adigu si leeyma welinayay waxaan arkay inay waqtigii horta June iyo July bay iga socdeen adeegani sheekhiska joogtoonay marnaba Hargeysa igu iman bas markii dambe waxa lagu yiri adeega kuma soo socoto danaha iska qabso dad baxayso adeeg ku jirta laakiinse hadii aad baxdo way soo fadhiisan xorun doonta gabadhii la dinayay baan qaadayaa meeday sawta leeyli la beedan u baxsato Hargeysana way dhuumatay deedna anigu waliga station ma arag iska daa maxkamada gabadhan imaadeerno Faadma dheer leeyahay ku nawaal maxkamadda Madiif igeysido way ikaxaysay maxkamadii bay igeysay wala sukay taagay waxaan ku dhaarntaas rabaa aniga walaashii adeegayna la kala saaro noloo qaado dhacanka DNA-da arshi soo qoray lagu yiri arshigii ma soo qortay maanta kale soo celiyay waxa leega gudoomay lawyer baan qabsaday waxa leeyahay hadana maanta caynkaas soo noqo waan soo noqday waxa leeyahay adeega samakaas loo dirayaa maanta halkee lagu hagaajinaya waxaan siiyay sultaankii Ibrahim adeero nambarkiisa waa la wacay in yar baa loo dhiibay waa loo geeyay date kaas ay imanaysaa halka kaale waa la isku keenay maxkamadii ani adeega face to face ilaahay ba iga sareeyay yaa anigu been ku hadli maayo hadda shabcana waa lagu jira soo way soo socotaa adduunkana waa iska qasin yahay ilaaliye ilaahay bay iga sareeyay gurigeyga nabad tagin intuu xaakinkii kacay intuu kacay sultaankii Ibrahim ayuu adeeg weyn dhigalaad waxba ma maqasho markaas ku ma loo yar baad u tamsiir maya hasuur fadhiiso ma hadli kartid adigu ala kulli xaal xagooda kama soconin sheekadu waxay ku soo gabagabeeyeen in dib loogu dhigo dib hadana loo dhigay ana waan baxay mudda la ii qabtay muddadii la ii qabtayna waan ku imi hadda saddex bil baan joogaa bishaas oo dhan waxaan taaganahay maxkamad arti samakii hore way bugtaa gaariga ma soo qabanaysaa la yiri haddana kii kale bil noogu dara week baa loogu daray hadda kii u dambeeyay waa tan warqadeedii adeega tii u dambeysay ay hadda maxkamadda u soo dirtay waa taa inta dambe oo dhan waa taas maxkamadda ay soo hagaajisay waxay tiri waan xanuunsanayaa mana kici karo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa walaalayaal corona jira la isuma bixi karo ana qof weyn baan ahay inaan noolaan iyo kale Ilaahay baa og 7 bilood dib hala iigu dhigo anigu mid deganay Hargeysa waxaan deganay Ingiriiska waxaan ku codsanayaa walaashii adeega si sharaf leh adeega wax badan baad media ka qaylisay walaalo kaalay birita soo bax maxkamadda go'aankan bay gaaraysaa markii xaqiina war laga waayay maxkamadii soo dhaqaaq weyda adeegay go'aan bay maxkamadii gaaraysaa aniga lawyer labaad baan qabsaday waxaan ku yiri ilo adeega hal ay keeno maba dhici karto inaan halka ka dhaqaaqo adeego halka la keen mooyaan waxa la yiraahdaa adeega xukumo lihin maxkamaddu maaha qof maadar galay oo dambi galay oo la soo xilxiriyo soo katiinaysan la keenayo waa madani way diidi kartaa way yeeli kartaa
هدي ديدو haddaan nahay maxkamadda anaga xukunka ridayna marka hadda xukunkii bay maxkamaddu u taalaa waxaan ka codsanayaa adeega iyo reerka aniga ay soo korsaday sharaftayga mudan inta soo leekaysiiyay inaad iga aqbashaan inaad bari adeega ii keentaan saadama maxkamadda la geeyo intaan xukunku dhicin soonka ka hor buu dhacayaa intaan xukunkaasi idinku dhicin in aan dhacankii kala qaadano ayaan idinka codsanayaa xumaantuna ma fiicna anu marna waxba kuma degdegayo adeega waxaan u ballan qaadayaa haddii waxaan u cadaynayaa adeega horta qof anigu noloshayda maan arkin caana oo magac leh oo 20 sano hooyo aan dhalin iyo reer aan dhalin iska haysto iska korsanaya markaas adeegidina tiraado qayladaan waa wareey marka waa 2000kii waxay hadashay 19kii intaasoo dhan bay hadleeday adeegi may wala may anigu sheekada waan ka soo sheekay mar 12kii waan hadlay hadda waan ka hadlay maxay haydeen waxaan ka hadlay VO-da anigu anoo 3 jir laga qaado waxa la geeyay Djibouti salaan batun caraaleeda la siiyay oo daa waxay korsatay inankeedu inantu qabay guriga ku wada noolaayeen iyo islaantuba halkan joogtay marka sheekh madar bediganta salaantii aniga korsatay batun caraaleena ilaa naxariisto way dhimatay Djibouti baan ku soo koray shajir anoo ahba reerkayga oo ka lumay walaalkayga helay shajir anigoo iyo odigi duubre loo oran jiray ilaa naxariistadeynimadiisba waaweyn hadii mar walba yimaadaan ilaa iyo 8 jirkaygii 9kii markaan ku socday sidaas bay reerkaas ii daba socdeen anigu markaan riwaayada qaaday Shamaali Djibouti baan aniga walaalahayga la soo hadleen markaan saa Ingiriiska u galay way la soo hadleen dibbigiisa xiriirinaya reerkani waxaan ku markaan sharciga saa u qaato Ingiriiska way dul taaganahay dhayna baan ka qaadanayna okay gabadhayadii baatay intaas calaamado baan kugu ognahay hadaad leedahay noo soo sheeg intii calaamadood baan u sheegay waan isunimi reerkaygu waan isbaranay adeega waan u tagay sheekh waan tagay waxaan ku leeyahay garanayno 3 jira 4 jira 5 jira 6 baan u gaaray no way ilaa haddana waan taaganahay lama helayo oo masaajidka galay ku dhaaranaya ana weyn oo 9 sano jira waxba iiga dhinay baan iga sheekhlay keenay marka adeegay waad ogtahay anigu adeegana way sugnahay walaalay macaali waxaan doonayaa inay waxa la beefkatay baa runimo gaadho laakiin hadda runtii bay taagantahay waa the real adduunkan waxay haystaa ma jiro horaa loo maray ilmaha dhashaan laga qaadi